kadib markii maanta la soo gabagabeeyay shirkii maalmihii la soo dhaafay magaalada Qardho uga socday madaxda dhaqanka Soomaaliyeed oo dhigay gogoshiisa Boqor Burhaan Boqor Muuse ayuu maanta duleedka degmada Qardho gaar ahaan dooxada Uuri ee duleedka degmada Qardho waxa uu qada sharaf ugu sameeyay dhammaan madaxdii dhaqanka Soomaaliyeed ee shirka ka soo qayb gashay qada sharaftaasi ayaa lagu sameeyay geeda quraca hoostood waxayna cuntadu ahayd cunto dhaqameed Soomaaliyeed sida hilib geel bariis cad iyo caano geel madax dhaqameedkii Soomaaliyeed ee qada sharafta ka soo qayb galay ayaa boqorka ku amaanay go'aanka uu isugu keenay madaxda dhaqanka Soomaaliyeed sidoo kalena waxa ay soo dhaweeyeen shir sidoo kale mar kale loogu ballamay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayna marti gelinayaan madaxda dhaqanka ee gobolada koonfureed ee Soomaaliya ilaa maal ka dibna waxaan u mahadcelinaynaa boqorka ee gooshan qiimaha badan oo dhigay iyo cidii gacan ku siisay gudahaan Puntland gaar ahaan gobolkan aan joogno Karkaar iyo magaalada Qardho waxaan leenahay Allah idin jiseeyo wanaagga ummadda u jiiseen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu maanta inta noo soo xirmay shirkii weynaa oo Boqor Burhaan uu ku baaqay oo dhaqanka Soomaaliyeed ugu baaqay inuu adduunkiisu ogol yahay inuu dhaqanka isu yimaado inuu si sharaf leh uu noogu xirmayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan kamid ahaa 5 nin oo loo doortay shirgudoonka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhaqankii ka soo qayb galay meeshaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Boqor Burhaan oo aan leeyahay Ilaahay ha ka jir Boqor Burhaan Boqor Muuse oo aan leeyahay Ilaahay ha ka ajir siiyo kulanka madasha salaadiinta Soomaaliyeed ay isugu timid ka dhacay Qardho deegaanka Qardho uu ilaamiyay Boqor Burhaan Boqor Muuse kaasoo ku dhamaaday guul 4 cashana socday maantana ay tahay gabagabadii ugu dambeysay ee hadduusan Ilaahay ku diidin la isku macsalaameyn hayay aad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinaynaa inta isugu timid gogoshan nabadeed ee Soomaaliyeed ahna labeentii Soomaaliyeed ay ka mid yihiin salaadiintii dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee shanta gobolba muxuu ahaa ka timi waxaan aad ugu faraxsanahay weeye Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa isna sidoo kale TV-ga SBC la hadlay waxaana uu ka mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta shirka madaxda dhaqanka Soomaalida in uu guuleysto maanta waa 26 bishii May 2016 waxaan soo gabagabeynay shirkii halkan uga socday hogaamiye dhaqameedka Soomaaliyeed qaybo kamid ah intoodii badnayd shirkaas oo looga hadlayay ama looga arrinsanayay maslaxadda iyo horumarka iyo nabadeynta ummadda Soomaaliyeed wuxuu noo soo gabagaboobay maanta 12 duhurnimo waxaan isugu nimi balligan Uuri oo maanta aan ku wada qadaynay hogaamiye dhaqameedkii waxgaradkii odayaashii dhalinyaradii saxaafadii idalaali intii ay qaybaha bulshadu haweenkii sidoo kale ururka haweenka gobolka Karkaar oo iyaguna qayb weyn ka qaatay qabsoomida shirka madaxda dhaqanka Soomaaliya ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in shirku uu ku soo dhamaaday si guul ah awal magacaygu waa Faadimo Axmed Xuseen waa gudoomiyaha haweenka gobolka Karkaar waxaan aad u soo dhaweynaynaa madashan quruxda badan ee maanta ka dhacday halkan waxaanu leenahay marti sharaftayada soo dhawaada ismada Soomaaliyeed ee halkan isugu yimi mar labaad waxaan u mahadcelinayaa boqorka beelaha Soomaaliyeed Boqor Burhaan oo madashan dhigay gudoonkeedana lahaa kulankii qadada ee maanta ee dooxada Uuri ku qabtay Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa ahaa kulan ismacsalaameena maadaama madaxda dhaqanku ay dib ugu laaban doonaan goboladii ay ka yimaadeen Cabdi Xasan Faarax wararka SBC magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar